sida aad daawateen qaybtii hore ee waraysigan ayaa madaxweyne cabdilaahi yuusuf axmed waxa uu kaga hadlay wadciga maanta ay ku sugan tahay dalka Soomaaliya iyo dhibaatada dalka Soomaaliya ay u geysanayaan kooxaha xagjirka waa ururka al-shabaab oo lagu xiriiriyo al-qaacida waxaana madaxweynuhu uu ka digay inay taasi ka sii dari doonto haddii maanta aan wax laga qabanin waxa kaloo si faahfaahsan uu uga hadlay muddadii xilka uu hayay iyo dhibaatooyinkii ka hor yimid iyo murankii soo kala dhex galay isaga iyo ra'iisul wasaareyaashiisa madaxweynaha qaybtan labaad ee waraysigana waxaanu ku bilaabaynaa oo ay noo joogtay qaybtii hore markii xabsiga laga soo daayay ee uu xidhay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre iyadoo xabsiga laga soo daayay isaga iyo rag kale oo uu ku jiray dabaqiyaaqadii sanadkii 1975 mar kale ku soo dhawow Universal TV markii xabsiga laga soo daayay dabadeed maxaa xigay bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdisalaam anagoo 6 sanadood xirnay oo isu maray xabsi Baraawe iyo Mandheeradii waqooyiga iyo xabsiga dhexe Muqdisho ayaa bishii Oktoobar 20-keedii 1975 habeenkii ra'iisul wasaare hore Maxamed Ibrahim Cigaal iyo wasiiradii la xirnaa la soo daayay ayaan la soo daayay nin walbana gurigiisii ayaa la geeyay أنا قلت لي ساعة وحوالي هاي مركين السود هاي بركي ميد نايتي هبين كاس نقول بقول جسوا اللي جاي وساحضي هبين كي كحيجي وبرية وكله أي هاي كوبي الله تنكي أكتوبر ومالنتي كعنكي سوماليا oo dhashay laguna xus jiray ayaa saddexda aroornimo nin walba gurigiisa looga soo yaray soo kale waxa nala yiri waxa idin doonaya gudoomiyihii golaha sare marka madaxweyne wali ma hayne waanu nin walba gaari baa loo geeyay gaari uu soo raacay waanu isu nimid markaanu u nimi oo isnabdaadnay dee 6 sano ismaanana ayaa Maxamed Siyaad Barre wuxuu yiri dambiilayaal baad ahaydeen niman xun baad ahaydeen sidaad yeesheen waxaad istaahisheen ciqaab intaa ka badan waa noo hanjabi mise waa nabaqsanaya garanay annagiina waxaan isla soo taagnay كمان حرنين يا مركا كوجو هليني يريتان كالغا يري وأنا يعيدي ونلسوا الداعي حبس الرحى ومقدشان نلسوا الداعي ده تو أنو وصلنا إيو سيدة بيرد كهرنين حبس من ديرنا وحنا كهرنين صدق سنوات براونا أفر بيرد بنا كهرنا وحلو يعني نقدر دحيري إنان إن وحنا كهرنين أي حق هاي أو أنو دنو قلي أنا وأكمل وحنا نري أنا ودنو مقلينه يطالب أنا لا شكت هذا غير ملاك هارجي لا شكت هاي شهات هذه عندي بدي شغله ما حنو على اللي سوى حق بتكهرنين مرن دير بنا رحنا saddexdii saac ee ka dhimanaa habeenimada murankaas oo hartan naga dhamaaday waa barigii iyo wuxuu nagu yiri dhageysta niman waxaa tihiin khaldan oo iimaan la waayaashay aan waagii ku ogaa markii la xirayay ayaa tihiin weli ma idan hanuunsamin ha yeeshee labadiina بعيدا ما إذن درسنا ما إلا إذن آمين ميه نوال با وكالته مركاتري يعني مدو بيبيا
aniga wuxuu yidhi meeshii fiyaad la oran jiray iyo gaadiidka iyo qalabka dayactirka oo talyaaniga aanu caawa kala wareegin ayaad waxaad ka noqonaysaa maraya guud waatay aydiidna wuxuu ku yidhi waxaad maraya ka noqonaysaa wakaaladii dawooyinka oo asbiima la oran jiray labadooda xafiisna way iska soo horjeedaan midna fiyaadba wuxuu kaga yaal dhanka ka soo horjeeday warshadii fiyaad meesha aniga la geeyana waxay ahayd inta fiyaad baarkeedii in yar la dhaafo waxay ahayd meel shirkadda markii talyaanigu haystay ay deganaayeen laakiin aan ka fogeyn waxaan u qaadanay mar haddii labadaa meelood isu muuqdana la kala geeyey dee kolley waana ilaalinayaa in halkaa laydinkaga warhaynayo isku group ina idin ilaalinaya kaana wuu arkaa kaana wuu arkaa xafiiskiisa wixii gelaya waxa kasoo baxaya waxa dabagal dheer baan inala ku sameeya markaa kadib waxaan anigu fiyaad joogay aydiidna asbiima joogay 20 bilood oo madax ka ahaa runtii anigu way hagaajiyey wakaaladii caydniidna saqasoo kale u yeelay 2 nin oo saaxiibana waanu ahayn waayo kadeed ofsas baan soo wada maray ciidamadan ka shaqaynay haddana staff college oo raashiya ah oo 3 sano iyo baraan soo maray marka aqoon aad u dheer baa isu lahayd haye marka dee macruufna wuu ahayn saaxiib baan ahayn aabihii xataa waa garanayay caydid aniga abahayn ma noolayn waxaa marka uu na yiri waxay yeelaysaan waxaad leedihiin aqoon military iyo khibrad dagaal waayo anigu waxaan ku jiray dagaalkii anoo battalion commander aan waxaan galay 64 dagaalkii inta dawladaha habashida iyo weerareen oo xuduudda la isku soo weeraray anigu ninkii daafacay baan ahaa bakool iyo gado ninkii daafacay ayaan ahaa aydiid markaa ma jirin ciidan unit furinta jira ma jirin talisku ka shaqaynayay wuxuuna yidhi labada meelood baad kala tegaysaan 20 bilood markaan joognay dagaalkii 77 oo dhex maray Mingisto iyo Maxamed Siyaad Barre ayuu inta noo yeeray wuxuu khibrad baad leedihiin tababar dheer baad leedihiin aqoon badan oo ciidan baad leedihiin aniga wuxuu yiri meeshaad 64 ka dagaalantay oo ah doolo jahadiisa halkaas waa front baad ciidanka xoogga dalka iyo wixii boliis iyo lagu daro iyo jabhadda Soomaali abow anu garan Soomaali abow markaa waa la yaabanay maxay ahayd baan leeyahay Soomaali abow baad madax u tahay ciidanka markii la isku dardaro 30 kun oo nin buu ahaa saas wax dayiilay naga ilaad ka gudbaysaa halkaas waa mandhawaagii talyaaniga qabsaday Itoobiya wuu la socday wuu noo sheegay wuxuu yiri inta gaal talyaaniga oo madax noo ahaa faras noo fuulay baanu annaguna waxaan lugeynay Addis Ababa waxaan leeyahay Muqdisho ila Addis Ababa markii wadada uu yiqay waana dhulka la fog Itoobiya markii aad doolo dhaaftana waxaad gelaysaa buuro iyo webiyaal iyo dhul kayma ah oo dhir badan wadada dhinac babartana male markaad naga ila qabataan waad gudbaysaan meel awaasa la yiraahdo oo leeg leebaad sii maraysaan yaad sii maraysaa ciidankaagu Addis Ababa koonfurka soo weeraraysa Addis Ababa koonfur kaga imanaysa oo marka qorshaha way ku jirtay bilowgiiba in Addis Ababa xitaa la gaaro adeer way ku jirtay anigu go'aanka wax kuma lahayn qorshahan wax kuma lahayn maxaa yeelay anigu fiyaad baan fadhiyay oo marka ciidan ka shaqaynay ciidanka harar iyo dirir dhaway weeraraya
kaasina halkaasuu markuu daharaya diriraba qabsaduu soo gudbayaayo webiga hawaashuu ka soo gudbayaayo waxaa isugu imanaysaan meel isagu markaa magaceeda yaqiini lawaagii uu maray oo magaala oo adigu iga raaliya haddaan halkaa kaa yara dhex galo sida dad fara badan ay tilmaamaan ama taariikhyahanadu ay sheegaan adigu dabcan xog hoosaad haysaa waxaa dagaalka loo gelayay in la xoreeyo wixii lagu tilmaamayay Soomaali galbeed ama gobolka Soomaalida Ethiopia marka qorshuhu mu ahayn baad leedahay in halka lagu koobnaaday ilaa Addis Ababa absolutely ma ahayn xeelana la yiri Addis Ababa koonfurka sawir ciidanka Harar iyo Dirdhaw ka soo degayaan waxay soo imaanaysaan wadada ka timaada ee koonfur ومركز دمبي مو يلا كينيا أدا iyo wadada Harar iyo Dirdhaw ka timaado oo waxay isugu imanayaan magaalo aan weynayn la yiraahdo Mocho oo Addis Ababa 70 kilomitir ka sokoysa deeto wada jirahan baa la rabay inaanu Addis Ababa qawn anigu waxaan ku iri masuura galba ciidankeena iyo awoodeena iyo marka la eego haddana waxay noqotaan haabi oo waxaan iri dhulku seeya ninka taliyaha ay dhulka iyo jawiga iyo dadka dhulka degan iyo waxaas oo dhan uu ku tushaa ila waa dhibaatooyin ka hor iman kara markuu dagaalka galay wuxuu yiri dhulka iska dhaafay saayal waayahay haddii ciidankii Harar iyo Dirdhaw soo degi waayay see la yeelay markaas laga tashanaya يعني waxaan arki jiray dagaal hadii la gelayo in horta political objective ama ula jeedo siyaasadeed in state kuleeyahay hadii yiri Soomaali galbeed baa la qabanaya marka ula jeedadu waa taa hay'ashee strategically inay suuragal tahay anigu waa ila cusay midda kale dhul weyn oo runtii geographically ku adag ciidankii soo galay bay leedahay Ethiopia waxay leedahay manpower badan ama shacab badan hadii dhulkii wadankii hadda la dirirayso wadan waa la tixgeliyaa wadankaasi suu yahay dadkiisu inuu yar yahay inuu badan yahay inuu ila wamaan baawarka hadhowto ciidamada laga dhigay iyo dhulku inuu baaxad weyn yahay oo balaaran yahay in kale wala labada markii laga badan yahay hadii strategically inay ku qalcata laga yaabo waliba hadaadan dagaalka yaani bilowga aadan bisha ugu horeysa iyo bisha ku xigtay aadan adkaan oo aadan meeshii lagu cayimay inaad qabatid qabsan dagaalku dheeraanaya markuu dheeraadana ciidankoodu dhammaan mayo intaa wax kumayal 40 konton iyo maaqa 60 milyan bay ahaayeen markaa Ethiopia inaguna 10 milyan oo qof way kulligan marka la isku daro kulli jamhuuriyadda Soomaaliya oo saasan filaya hadda waa lagu biyo Kenya dii dagaalku dheeraado waxa kale oo yaani suuragal ahay dawlado kale oo Ethiopia u hilinaya inay dagaalka soo galaan speed baa marka loo baahnaa Cabdisalaam speed in guula lagu gaaro oo objectivekiina loo diray laakiin bilowgii taas waa dhacday Soomaa markii dagaalka la galay sidaynu la wada soconno Soomaaliya ciidanka ay markay haysatay waa ku xoog weynaa kii Ethiopia waayo Soomaaliya equipment-igi haysatay iyo tababarka lahayd aad bay u xoog weynay saraakiil wada tababaran oo staff college soo wada baxay baa ciidamada hogaaminayay furuntaydii ana madax ka ahaa furuntaydii baari qaar kale hogaaminayay Harar iyo Dirdhaw ayaya marka Harar iyo Dirdhaw ay ku dhawaayeen wasiirkii gaashaandhig oo taliyay ciidanka ah oo Cali Samantar ah oo aanu Iraaqeed oo sarkoos meeysahay baa runtii ay hoos imanayeen hogaaminayay waxa marka loo baahnaa in markii qorshaha la sameeyay
lagu talagalo factorieskaas oo dhan hadda anagu waxaan u qaatay in lagu talagalay ha yeeshee markii dambe oo ciidankii harar iyo diridhaba kasoo digi lahaa isoo socdo anigu naga ila waan gaaray laakiin awoodan intaa ka badan sii socon karo haddii aan ciidanka la xoojin ma haysan ciidanku xoogaa artilleriya la socday inta kale infantry buu ahaa taangis iyo ABCs iyo dayuurada iyo magaciisi iyo maaragtay dagaalka kula jiro oo taageeraya ma jirin maalin qura dayuurada inuu soo diray aniga ciidankii hore iyo diridhe markuu socon waayey anigu waxaan hindisay war haddii ciidankana wuxuu madaxa loogu garaacayay difaacuusan mari karin khasaaro badan baana ku gaarayay waxaan codsaday markaan inaan muqdisho tago muqdisho markaan tagana isaga unba i qaabilayay maxamed siyaad barraa i qaabilayay ilaa cali sanatar wuxuu jiraa kore ya waqooyigu jiraay waxaan sii samaystay qorshe strategical oo macquula qorshe markaad samaynayso aad ciidan tahayna waxaad ku talagelaysaa factories badan waxaasoo dhan anigu oo runtii tixgeliyey ayaan qorshihii sameeyey qorshuhuna dee marna waa qoraal oo waa ribood iyo fikradaada aad dhiibanayso marna maabka la dulgeynaya oo warbixinaad bixinayso ha waxay iman diyaarsaday waad iman kartaa baa la yiri waa tegay galab baan soo galay magaalada dayarad baa dolow la igu soo diray yara oo boliisku lahaa laakiin nagale ilaa dolow gaari baan kusoo maray madaxweynihii oo la fadhiya nin sarkaale yaan soo galay oo qu-im soo fadhiisu yiri soo fadhiiso ma timi haa soo fadhiiso ninka markaa la fadhiyay wuxuu ahaa maxamed nuur galaal oo furuntada diridhaba markii hore madax ka ahaayoo laga soo bedelay maxamed nuur galaalna raashiyaana wax ku badabaaban jira waase iga dhalin yaraa iyo gaabna ayaa garanayay ma garanaysaa anigu markaas waxaan idhi anigu waxaanu imi guddoomiye kusoo jeediyaa haa buu yiri miis baa meesha yiri wuxuu was fadhiyaa xafiiskii uu ku shaqayn jiray seexana jiray oo airportkii muqdisho ku yeelay geed ku hor yaal oo weyn baa miis yari u yaalo waxaa ugu rakiban jalaskii baalkii may qaylinayo markii uu soo galiyay geedkaas u garaaca wuxuu yiri waad yeeli kartaa bilow ma sheegin waxaan wato markii hore waxay baan explanation galay horta reportkii baan dusha u dulmaray oo akhriyay qaybihiisii muhiimka ah deetana maabkii baan intaan kala bixiyey oo miiska saaray baan iyadana ka hadlay wuxuuna way isleeyihiin reportka iyo maabku wayna isku yimaadaan waxaan ku yiri guddoomiye amarkii aadna siisay anigu waa garanaya aniguna naga ilaan jooga ciidankii harar iyo diridhamana soo socon waayo de garanayo difaac adag miyaa ka hor yimid ma wax kalaa dhacay difaac ay marin kara baa madaxa loogu garaacayaa ciidankiina khasaaro badan baa gaaray taasina waxay keenaysaa ciidankii awoodiisiina inay yaraato muddaduna dheeraato muddo dheerna haddaynu dagaalkan ku jiro aakhirka waa jabayna waxaan kaa codsanayaa qorshihii strategicalka ah ee aada dagaalka ciidamada ugu dirtay in wax laga bedelaa maxaa la yeelaa waxaan ku iri ciidamadan meesha aada madaxa ugu garaacaysaan waxaan kaa codsanaya ka daayo waayo mar haddayan guulo dhalinayno hore u soconayno magaalooyinkii loo xilsaaray inay qabtaan ee ahaa harar iyo dirirgabe haddaanay gaarayn oo muddo dheer ay ku qaadanayso inta markii aad weerar gelisaanba lasoo jebinayo khasaaro badan dhacayo ciidanku halkaas waana runtii ku itaal yaraynayaa
oo khasaare badan baa gaaraya waktiguna waa dheeraanayaa waxaana muuqata ciidanku halkaa inuusan mari karayn hadda haddaan la bedelin qorshaha maxaa yeeli lahayd buu yiri waxaan ku talinayaa bani meeshaan ciidanka madax loogu garaacay hadduu mari waaye ciidanka difaaca la geliyo ciidan badan oo kamid ah oo culus wata hala soo wareejo koonfur ha loo soo wareejo oo anaga hala ii keeno annagu markaas horey wuu socon karaa markii taangis iyo a b c iyo dayuurado iyo magaciis iyo waxaas ay taageerayaan anigu Addis Ababa koonfurteeda waa tegi kareen runtii laakiin Nageele iyo Addis Ababa waa 600 kilomitir oo lake iyo webi iyo buuro iyo mirana markaan sidaa iri wuxuu yiri ka socod ka gudub weeye yani uu sheegay marka waxay kugu muuqatay inaanu talada qaadan anigu taladaasaan soo jeediyay wuxuu yiri ka gudub haddaan ka gudbo khasaara iman doontee yaa mas-uulka noqonaya adii waxba kaama igelina ka socday markaan dhameeyay anigu explanationkii buu wuxuu yiri ka soco waxaa yeelaysaa sida yeeli maynee furuntada aad ka timid ku noqo aniga waxa ii caddaatay ciidanka Soomaaliya guushii laga rabay bilowgii inuusan gaarin waayo ciidankii socon waayay ma soconayo ciidankii anigu aan la joogayna ciidan xoog oo ilaa Addis Ababa yani marka beegsan karayay ma waa tahay sida aad u sheegaysay waa laabtayda xirtay waa laabtay subaxdii baan dagaal raaco dowladan kaga digayo meeshayda taliskayga baan ku noqday waxaan garanayay muddadu inay dheeraanaysa dagaalka waxaan garanayay raashka oo aad u ayidayay waayo raashka waa kii Maxamed Siyaad Barre eriyay u ayidayay dhinaca Ethiopia qoladii mingistu madaxda u ahaa Ethiopia qabsatay caqabad samaysay waxaan garanayay inuu dalal kale oo shuucinimo sheegto sida Kuba oo kale inuu ciidankoodii dagaal soo gelin karo waxaan garanayay balaaninka iyo maaragtay hogaaminta ciidamada iyo magaciisa inuu siinayo sidii waa dhacday si difaaci loogu jiray ama kaligay ma socon karo ayaa horta waxaa yimi Kubaankii سيران يمن ومركا حرأه وأنت وذاك أهري راشية تنادى ذي يوم رشالة ذي يوم عيسى إذا من ليبيا يوم ها كوده ليبيا مارجنو لكن يمن نوعهما راشية يوم ملاحظوا ذي تمدوا دجالك إثيوبيا وهو جامين سنوان هما من جنرال بتروف اللي هذا بقى هوجانك ملحقة آيو ميل كوري. خلينا مدحنا فرا بدن وتانجس إيه مجلس إيه جنيل. عن هالك كاير نحكله تاريخ داس وضع ضيسي مركي دمبنا سيدا شيء يسيبه وضع ضي سيدا تاريخي هذا ضد مقريان. سومالي مركي ورجولو وحيقادي آدو وناكسن مركي دمبو ولا سوتش بي سيدا دي تضباطن كي. markii laga soo baxayay Ethiopia ciidanka Soomaaliya dib u soo guranayay sidaba ku garoonsaday madaxweyne Maxamed Siyaad Barre talada soo ku qaatay waxaan filayaa anigu ma weydiin laakiin waa malayn kara in dawladda saaxiibaha runta u sheegay oo yiraahdeen meeshii intaas dawladood oo xoog ah baa soo gashay Ethiopia ciidamadeedana iyaga hogaaminaya awoodda ciidamada Ethiopia ku dagaalamayaan iyo ciidamada u keenay oo wada socdaan iska caabin kara meeshaan nimanka Soomaaliya inta la qabsan ciidankaaga la bax Algeria waa hubaan saatay waa huba go'aanka wuxuu gaaray marka reality-ga loo sheego adduunka u sheegay dalalkii saaxiibka u sheegay way aragana dad ciidanna waa la jabiyay waqooyiga waa ciidamadii waa jabeen
إلا خسارة بدن بقاريه أنا سجالكي مش سجالكي مارش مية سجالكي بروح اللي يري دي بقول شحيل دجال سمير دي بصباح ciidanka qaar goriilo ku dagaalama meesha ku soo dhaaf ciidanka intiisa kale waxa ku soo galisaa xuduuda doolow waxaana yeelaysaa difaaca galka waxaadka Soomaaliya difaac ka gashay 5 maalmood iyo 5 habeen baan soo socday anigu Ilaahay iyo diinta way gaadid u filan ma haysan oo gaadid celis iyo magaciisa ku shaqeynay yaadii dib u gurasho sameeynaysan la iskama yaacay waxa weeye adigoo dagaalamaya waa ciidankaaga dib loola baxaa qaar difaac inta ku sii jiro inta kale baa dib loo saaraa 5 maalmood iyo 5 habeen kadib baan ciidankii labadii guuto ugu dambeeyay ciidanka baa la socday 15 baan webiga ka yimaada xagga Kenya iyo Ethiopia xuduudooda daawo baar maaliya oo chuba kaga daray doolow meeshiisa kaas bridge aan dhignay oo bridge mobile aan dhignay oo ciidamadu lahaayeen markaan ka soo talaabay oo aan dhankii Soomaaliya yimid ciidankana ila wasiir hormariyay qaad amar baan siiyay difaac ku sii jira ciidankii Ethiopia oo sanka iyo waayaba soo galay xabad waan isku bilowna de halkaas aan isku hor fariisanayo iyagu may gudbi kareen ilaa difaac adag baan ku jiray runtii laga yaabo inay naga badnaayeen laakiin nagama xoog roonay qalab ahaan nagama fiicnay wali halkii anagoo joogna baa waxa ii yimi niman saraakiil oo taliska guud uu soo diray nimanka amar baa la soo siiyay waatay أنا كمان رقبة إلا مركي لجسوا بحي يجتيجا إذا بدنا أسكر على الرجل ده العصية كانوا سديتين إلى راد نبا أنت اللي سوك يعني يقول الله ونقول وحال الصاح الرجل ونكس فأنت اللي سوك يعني يبقى ينتهر على قدري باب كل يقول لله أنت هسوا أنت بدل أد لوجه الله هدي أد إن يكون يراها كنو maxaa looga jeeday talaabada waxa looga jeeday ciidamadan hadii ay soo noqdaan oo dalka ay ku soo noqdaan walaal isku day karaan oo shiday samayn karaan shacabka iyo ciidanka dagaal baa loo diray hadana waa laga soo saaray sidii dagaalka maragtay loo qorsheeyay sidii loo galay magaciisa waana qalad ahayd daan ilaahay ka yaabayo هذا محمد سياد بركليه كويدين مي انتي marka joogtay saraakiilayda aqoonta lahayd hadii way ku jireen way qorshaha iyaga u geenay waxa loola jeeday shacabka iyo ciidanka soo noqday oo dagaalka soo noqday inay anqalaab sameeyeen lagu baqdin galiyo markii haddana hargeysa ciidankii qaarkii uu ku noqday 6 sarkaal oo u tababaran oo dagaalka ku jirtay ay hargeysa lagu toogtay يعني هو كل عبسي قليل رجل والله يعني عيدا والله يعني إن ربطي يعني هو كلا وحقوقاتان يعني هو كلا وحقوقاتان هو عجيب مركب وفتي أنا لا يسوي رجائي هو حيابي ليس شيء هو حوي مركب عيدا كي ودول مرين أو جان أو مركب سبوت كان بعيدا وكويه وقاعدين وحيرادين وحلقات دونية سي شعب كي عيدا هو وحقوقاتان وأنا وحنا الله بهاي أسمعين هذا من الرجل الله يكاد عدان بعد كم مرة لقوا شيء إله بيقول لكن سايقول أنا واثق المقعي سينا شيء مرة به هو شوفه والسركال كهذا وقامني النوع هو كان ويله شوفه بريسي ملتري ويسوي شيء قارئ وهوي بيكون شيء ما قرأني سام ترى ما لقوا شيء مرة هذا يقول هالليا لقول لي أنت صح ولا رجل لايا أنا هو أنت صح ولا ما قرأني رك صار رأي رك دم بقراي ورك مقعيسي
كان باليري أول الله يسي وحلو قط أنا وحصة عرنا معي حبان سمي أنا معي إيه كيسو إذن دجال ما درين باكل معلانية هذا يراي دي أخذت دجال ودرتين إيه كيسو إذن أنا الدفاعي كشرة أو أنت اللي يسكت اللي مروه سو إذن كي ما أورن كسر نقول حدود يعني أو دبقروشة سنة يوم دفاع كقل حدود ها دي مركي ورنا أمريكا بحسين بعيدن كقول دجال بانكوي مركي دنبنا أمرت بحسين بكو صباح مركا أنا أقول الله يمهي وحالة معي اللي هو معركة ريحو ودي دي أنا والضمير كاس ما يارن كارو مركا أسان أغادي شيغانا إن رقا سيداتني إدارات كالو قولي هرقيسان إن لحسر كالو كل ولا نقيم لو توكتي سيد كواس أو خليبا للدوني أي مركا ودي هرقان صايا وعيدن كزندن بلاهين وأنا أنت اليوم ها أنت دجالك اللوجري وأنا صوماليا ووطنيا أهي يعني عيدا صوماليات ومدحوا أهيدا مقيسي وحلقات وهلا كان هلا الله أنا وحيلا نقطة وحقفران إذا ما نقول واضح حد يرقب أنا قمرا ما كان ولي تجيبون haddii marxaladda lafteeda su'aal yar oo kala ka weydiiyo ciidanku ciidan soo jaway buu ahaa dib u garashayaal dagaal lagu tilmaamo laakiin xaqiiqada iyo taariikhyahanada adduunyada salaysay ciidan soo jaway buu mar haddii ciidankii xoog weynaayo waqooyi ka dagaalamay hadduu soo jaway marka ciidanka wadatay su'aasha waa taangiyadii iyo dayuuradihii iyo magaciisa ku baanka taas waa la isla qirsay laakiin su'aasha doonaya ku weydiiyo waxa weeye niyada ciidanku sidoo ahaa markaa haddaad ka soo qaadda ciidanka aduu madaxda ciidanku wuxuu ka ciil qabay inta dagaal la geliyey oo la yiri Soomaali waa la xoreynayaa haddana in dagaalkii laga soo saaray iyagu de riisanka looga soo saaray waxa ay may garanay moqta waa askari way niyad jabka intii la doono niyad jabka taariikhdu dabcan waa taariikh aad iyo aad u dheer tafaasiil badanna aad ka haysid marka kama wada gayoonayno niyad jabka ciidanka Soomaalida la soo darsay wuxuu keenay afgambigii ay isku dayeen saraakiil adadu ka mid ahayd taasi sida u dhacday Abdi Salaam hadda lillahi doonaysi anqaraabka marka aan wax xabsiga ka soo baxay waa socday laakiin wuxuu ahaa رئيس وزراء الشو سراكيل اللي يراها ودي سراكيشا محمود شيخ عثمان إبرو بكوشي من أول اللي هنا ممكن تشوق على بادية اللي يراها بكوشي فرقي لله يودن بكوشي وحا يري مركا هذا تشارلز انقلاب لو سمي يابان هيسنا الأول أديكو الدجال كوشيرو ضد كي سوماليات بالحرين يالليه محمد سمين كريم أديكو لكن اللي قالها اللي مدن مدحويني waxaa tiri qabanqaabadu way socotay marka xabsiga laga soo daayay dabayaaqadii 15 way socotay dad fara badan oo Soomaaliyeed waxay isku raacsan yihiin waqtigaas inuu ahaa waqti Soomaaliya sida loo arkay ee dadka shacabkii u arkay badidooda ay dhaba wanaagsan haysatay horumar ay ku socotay sida loo arkay saraakiishaas maxay saluugsanayeen ogaanta waxay saluugsanayeen saraakiil dhalinyaro ah oo mutacallimiin ahaayeen waxay saluugsanayeen horto ما تشعليسن دجال هدول وجهه هي اللي جريو مركل لبعض شو عندما ده إيجو هنتي وداق اللي هي ماركسي أم العيسى ما يدوني سراكيل وطنيين أو صومالية أو بدها يسكتشين بيهاي يو حاجة ماركت الرم بالك الوخس فيه تاسع ماركت كبيرة وطاي أروح مركز صوب في هذه يو سراكيش يا مدحدوها هنشيل قد يرايبوي ويكون تدقري وانا الى هذين وروح خير انا وحدان صوبحي وربما هيه لي واحد دار هيسان مرتي و انفورميشن و احترام وعيش ودي شيء كرتا لكن ان لغا فيرسو ما فيعنا تيري marka dagaalka la aadi doono dagaalka ciidanka loo dirayo ana waxaan la urukaatay
laakiin haddana in inqilaab la sameeyo niyadayda raalli baan ka ahaa ha yeeshe ciidamada kuma jirin oo anigu kama shaqayn karin xafiiskayga anoo fadhiga fiya oo markaan ciidamadii layga saaray oo shacab ah oo ku jira kuwii xirnaan jiro iimaan laawaasha alweeli bay talay weydiin jireenna waan siin jiray wixii kale iga baahdaanna waa u qaban jiray laakiin waxaan loo baahnayn oo aan meel mari karin oo fashalaya ha samaynina kulaha wax badan baan intay damceen waxay isku dayaan baan ka joojiyay waayo intaan dagaalkaba la aadin bay fashali lahaayeen oo runtii ninku waa eegaya ma ogtahay mas-uulka oo madaxda ahaan jiray oo tababaran oo uu eegaya maaragtay waxa la rabo in la sameeyo iyo xoogga meesha yaalo dadka uu rabo inaan qalaabo uu eegaya ma ogtahay haddana iyadoo aan riisan jirin oo waxba jirin anqalaab de waa kii caynaansha iyo gabayre iyo cabdulqaadir dee lagu dilay oo kale ma garanaysaa iska dhaqaaq un adigoo aan xisaabtamin dee anqalaab laguma galo dagaalka markii la yidhi waa la aadaya qaar baa ii yimi saraakiishii oo cira kamidihii oo waxay yidhaahdeen iminka si aan dagaalka ciidanka loogu dirin oo ciidanka loogu soo baabi'in dagaalka iminka aan ka hor tagno nin waliba furuntada loo diro markuu tago inta dib u soo noqdo muqdishoan soo wada gallo oo aan anqalaabno waxaan ku yiri iyadoo laleeyahay dal iyo dad soomaaliyeed baa la xoreynaya haddii yacni aada ka hor timaadaan oo aada iminka anqalaab isku daydaan dee haddii khaa'imiin waddanka jiraan khaa'imiin baa laydinka dhigay shacabka soomaalida xataa raalli kuma hadeer shacabku wuxuu u heelan yahay in dadka la doonayo in la xoreeyo iyo dalka la doonayo in la xoreeyo xoreeyuu rabaa shacabka fiilinkiisa waa la tixgeliyaa markaad wax qabanaysid anaa ka joojiyay markaas wax la isku dayla waana fashali lahaa naalaha waayo ciidamadii ku tishanayeen kulligood habeenoo madoowa inta labiska laga bedelay oo qoryo yaryar la siiyey yaa la yidhi gorilla laydinka dhigayaa oo ogaadeen yaa la geliy waxay galeen wardheer waxay galeen qabri dahar waxay galeen dhagax buur waxay galeen goday iyagoo markaa laga dhigayo jabhaddii iyadoo jabhaddii soomaali galbeed laga dhigay wanaga iminka waxaa dagaalka waagaa la ii diray anigoo dhar jabhadeed qabee oo ciidanko dhame qabee oo maadna qaadan jirin maaragtay raankiskii iyo wixii iyo labiskii iyo saraakiisha ciidamada maadnan qadar lama ogolayn jabhadiin baan nahay war ciidan intaas oo 30,000 oo nin oo intii jabhadii waa jabhad laakiin militarigii ah oo wajiyadooda ilaa satellite baa jiro oo walba jiro waa tahay ragga ku soo tababartay la yaqaan noqotaa min fadlagtii marka ciidankii uu soo jabay saraakiisha muddadaba ku taameeyay afgambiga inay sameeyaan ayaa isku dayay sidaynu la soconno sideedii sabab ku fashilmay ninkii la oran jiray allahu naxariistee colonel maxamed sheekh ciro baa maaragtay saraakiishiisii kuwii hargeysa lagu laayay bay ahay inta uu mindhacaro laga dareemay baa lasoo bedelay guutadii difaaca cirka oo sawaariikhda sam 2 iyo sam 3 iyo waxaa dalka ku difaacaysay una taliya waa taliya guuto waa dee saraakiishii markii hore ay isogaayeen oo dhalinyarada ahayd uu meesha ka helay waxay iisoo direen wafti qarsoon waxay yidhahdeen caqlaabkii iminka waa in la sameeya anuu qorsha intii u sameeyey yaa waxaan u dhigay calibaadi oo xamar aadiyey qorshe aadiyey calibaadiyana cerishii qismaan walaalkii ka yar weeyey waxaan ku yeelay dee haddii inqilaab la samaynayo wuxuu rabaa qorshuu rabaa wuxuu rabaa maalinta inqilaabka la bilaabayo wuxuu rabaa farsamuu rabaa wixii dhan intaan u sameeyaan u diray oo waxaan iri war waxay yeelaysaan 12 abril waa bishaan dagaal ka soo baxnay bishii ku xigtay 12 abril waa maalinta ciidanka xoogga dalka la dhisay
ومالين تلا حصيو ومالين هذا دقدقاق سميسان لمودية إن الدبال دقيسان عيدي مالين تهوين لو هجاجة حنقلاب إن حمر لقى سميان أنا ومن قرشين خنتي إن لو فشل أنا وانقرني وحنكويري ورعيدا كحنقلاب قصمين هيا لأن كي تالرون حمر يسكت دينا إن لو سميسان وقتي مركو صاغرو نوديكا أريد عيدا كيينا عيدا كل كونتاكت لها ويس أوجاي عيدا كيينا إن يرى دفاع كوريا ما هو صورة قاتشنية بقدر عقد صومر يا أفكار كسبري ليه حكوا تام بتاعه ميليتريا أو ترى هالناي مسامرها يا ترى هالناي مسامرها لا طبعا كنا نوي وين كوجا عيدا ما دي قبل هو هيران الجدود مدوق ومركز اسمه مدوقها نوال صورة قاتشني وحي ينا إلى بلعت كسر قلان أنا أنك قال أفقويه أنت بينا وعكس سيمري وهو قبض سريكيش هالكاس أنغلاب جديدا إن الله يكمل تلقيني لكن قبل الله وحرلها مركان لبضل إن عكسه قال له أنا كأود بمي يقولي هو تيجي حوجة هو بلص حوجة بوتي لكن تاسمد marka waan hiri odagu ambada yurad ku baxsanaya ambada waa qabanayna laakiin in dad la iyo kuma nan talagelina annagu iyagii liikaysi baa baxay sagaalkii ebril oo 3 xashar dhiman tahay oo annagu aan diyaar garow ku jiro bay anqalaabkii isku dayeen waxay is yiraahdeen yaan la idin kala hormarinay أغلب يسكت ضيا ده يقول يستان خارج هدي خالد ده وواحد كده يجري واحد كوب قال عن أغلب هو حاوي وليكيش كسب حي وقاعدين لا لجور هلاي لجور شاي وطن ها مركي يسكت ضيا هلينكي بانو موضوع إسلامي انتصي قوان كران رول بدن بخمسة سراكيل بدن أوتلي على هيدو عن أغلب كسر شيء دي واقبته على السلام ترى وكبح صدي يقول جيسي ورنا واحد ضمعان إلى الغبطان وكبح صدي هذا ربك عرف ده تمرك يدمبه ما أنت يدمبه لو بيك إلا لقى حكران لقى بدن لقى هو بدن لقى عيدا بدن يقوم هي سنة هرتساس كوفر شلي عن قلابك مركو فرشلنا ما بقي أنا وياه راه بيقطع إن لبراوي. قول ما تكون حاجات شوجا ما قال اللوق اللي يرادان شوجا يقدر يقتل لكن دفاعي وفرنت ظهره ودوله يبولها مركان مغلي انقلاب وفشلي وحاول يوه الرئيسي وحاول محمد سياد برو إذا عدك هذا يوري انقلاب باليس بدي انقلاب هو فشل النيك وكاتو بيهاين مقيسي له وإذا عدك هذا ينكور هذا تينو سميت كلا هاي وكي أنا وياي وافهمي وحرس كدي مركا عيدن كل إن الأبابله ومركا المحيسة ماشي ومركا أدي أرجعوا وقت استودع كرا هدين وانكي ولي أي ملاهيستانا يعني نقول مدو هدين لقد تخلصينا ده مركا وحي كلا اللي يري لهاي نيار مركي بوحي يصوب بالوضي وحي يصوب بالوضي أمر اللي حمر صوغر ورتشبه الويرية ومع زياد بن ويدا كهضي وعنقلاب ما فشليله ورقة فرت الوفيقية رقي دليرها صاحبتها هيهين وعرف الشيخ وهذه أنا لقيها بين لينك سوقه وحال فهمي لينك إنه كتير أنا وصام فيلي كوجي هذا مددي هرور من أنا العلين والله دقالك هالله بحمرك اللي يريد يسكت له مركي فشل في ناي يعيدك يوم سكابه ولا سراكيش هذا دعوه سراكيش أرجع فرنت هذا كذا دقالك شيء إلى شوكتين بقول يشن يتبان سركال بالهاي ودرجوين كم مركا وحاول كورنيل إلا حيدقله صدح من مويانه انت كذا عن غلبك وكجري
waxaan markii dambe reer laga dhigayo reer baawaday oo kala tahay oo kan ma ahayn wallaahi ma ahayn kulligood waa ku jireen adigu reer waqooyi baa tahay saraakiil badan reer waqooyi ku jirtay ma garanaysaa markii dambana annana ma sheegin kuwii la qabtay oo maaragtay la layn jirayna ma sheegin oo annaguna waa iska bixi doonaa kuwii kalena de waxay yidhahan kulley waa laydin dilayahay badbaadiya saaxiibadiin wixii aan la ogeyn oo aan la qaban marka saasuu ku fashilay canqalaab sidaasuu ku fashilay dabadeedna sida taariikhda aan ku hayno adiga iyo rag saraakiil aad ka mid ahayd dhinaca Kenya ayaa u gudubteen oo waddanka waa ka baxdeen maalintii hore ee canqalaabka fashalay ma bixine maalintii labaad doorkii baan tashanay taliyayaashii guutooyinka la tashaday waxay yidhaaheen meeshaan waa tuuley maxaa yeelay ciidankeenu waa ka fog yahay muqdisho kan kalena waa ka fog yahay gobolada dhexe ka imanaya haddeer haddaan duulaan meelaheenaas ka qaadno oo aan wax meeshii inoo ka horreeyaan jirin saraakiishaan canqalaabka xamarka sagansa waxay ahayd qorshow markii wax la bilaabo inay qaarna xaggayga usoo yaacaan wixii canqalaab ku jiray ee loo baqayay waxna xagga gobolada dhexe ciidamada ka soo socda ay ka hortagaan oo markaa nala soo gadoomaan nala yimaadaan xamar marka actionka wax ka galaan ma yeelinay de meeshii bay ka bilaabeen meeshii bay maaragtay ku fashaleen meeshii baa lagu qabqabtay inkastoo qaar la qabtay 10 casho kadib oo intay baxsadeen oo baadiye la weeyeen oo iyagoo baadiye jooga la qabtay gartay iqlaabkaas la isku dayay saasoo ku fashilmay adiga iyo saraakiisha kale sida sheegay Kenya muddo joogteen Kenyana waa ka gudubteen oo waxa u gudubteen Ethiopia detail ku sheegay miyaa doonaysaa mise inaan ku dulmaro taariikhda ka wada gayoon mayno marka waxaan isleeyahay inaha ugu muhiimsan markii maalintii labaad la marayay oo ciidanka iyagiina uu iska abaabulan yahay waxaa la tashaday taliyayaashii guutooyinka ee markaa joogay waxaan ku iri waa aragtaane maxaa nu yaallaa waxay yidhaahdeen dee baraka ma laho haddeer inagu action ma geli karo waanu qabtay waana la ogyahay waxa inaynu ku jirree aynu iska baxno haddii Ethiopia haddeeran kasoo dagaalamayo waa kuma noqon karee waa webiga dhankiisa kale fadhiyaan hadda ogow annana dhanka Soomaaliya fadhinaa ilaahba waa isu muuqanaa maalin walba isxabadayna waxay yidhaahdeen dee adigu noo tagi Kenya oo aan waxba naga tirsanay inaan galno oo political asylum weydiisano baan soo jeediyey tii waa laygu raacay saraakiil group oo 12 ay raacday baabuur baan ku baxnay dee waa ciidankaanu madaxda u ahaynoo markaan dhex maraynay doolow ilaa boolaha waa ciidankii difaac kaga jiray waa ciidanka iyaga salaam baaba naloo qabanaya وعندنا قوانين سامي شفتوا. ليدل من أوجي ده طبعا اللي ذكروا هيننا. وحنا أسرعنا اللي جرني. من درانو كلا يجور كلابه. من درا يبولها ونا. ويسمو غدا. ويسكمل. الربور بكو اللي شري دحضر أنت كله. ويسوون جروب كلو أمغدا. هذا المجالين فيك وينادين ويسقسي دوبيلات. كيان هي با وحين جيين حبسيقا بوليسكا ومديرا السيلس نما يجرين وحين نديجيين قريو waxaan filayaa inay ka baqeen in intana la ka daba yimaado xoog nala kaga qaato ama la qabsado in fact anigu markaan baxnay oo mandheero galay oo habeenkiina la waayay waa la isku dayay anigu saan war ku hayo in ciidan laga soo daba diro ciidan laga soo daba diro hadana waxa ay open war between Kenya iyo Soomaaliya noqon lahayd adigu ma la lama ay samayn subaxdii dambaad macal baabuurtayadii waxaana lagu qaaday iyo hubkayagii dayuurado waxaa aanu sii maray magaalada la yiraahdo Wajeer aeroportkeeda waxaana lagu dejiyay Garissa oo caasimad ah gobolka waqooyi bari oo
وصومالي دقنتها دوري طبعا عشان الكوهي انت وانا الوريساني إلا ولا سكك عقولنا يا وحاط تيمية وحاطاية وعمل عيسيو صومالي ولا بيشك سيء آخر كيو إن أخبرنا وحي راه سوق هذا نيروبي كيرا نيروبي بأنه ورئيسك أنت دراك كوسي ويدينين ساسا نيروبي كنت مجد ورئيسك ما لك دم هذا أنا برئيس كونفرنس السمية مكهد وحان شيء أيام دفع إن يستحي انقلابكي إنه ما فشل وحان شيء إن أي دعدي وحيابا runtii aan lagu talagelin hadii anqalaabku fashalaana anagu waa soo baxsanay magangalyo siyaasadeed baan idinku niman ku gartay inkastoo dagaal aanu dhex marin wadamada Kenya iyo Soomaaliya haddana khilaafkii waxa jiray la midka ah Ethiopia oo kale dhinaca dhulka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyay marka laakiin Kenya diyaar uma yahay inay martigeliso jabhadii wax ka sameeyaan jabhad ma golayna waa diideenay Nairobi ana la geeyay Nairobi وانا الكوريستي ورئيسي مركز كان بريس كونفرنس ما قبتي يعني waxay noqotay waxa yeelay inaba ka hadlay ana waa ishaaray sida inaan ma ku haray hadii aan qalabkii fashalay oo mid hore fashalay oo saraakiil badan la laayay anagu marka dagaalkii waa bedelayna noociisiyo aan qalab dambe garimayna dagaal hooysan oo shacab baan ku hortagayna كعان كسياد بري بان أفريقيا كذا هدي هذا إذا عدي واقع ولا تبع عجلتي ولا هلي ما كانوا ما لما تشوقنين وحنو يمد ولا صوت في الأورنج أول دبي بتشتري وشفت شيء كذي لكن أنا عيدا ملاحين أوبريشن سنكلين وحنا قادر وصل لي جود هالكوها مركا لما يسكا مرتي هابي هاي أنا إثيوبيا أنا مركي أنا ورفاي بالله كسر meel saldhiga oo ay meel ku amni jireen qaarna carabtu la jiray qaar meel kale u jiray dima waxay ahaayeen adigu ban guwaatay raggaas waxaan ka garanayaa ninkii madaxda waxaan garanayaa xogayihiigu ismaaciil cali qof ma kamid ah qaar yar waqooyiga ku jiray هذا من ماركتي شو يوسف اللي هذا دير بكوتشري مقرن إيسا يوسف ديرنا يو إسكوفرتي يمو دكتورات يا يمنو إنه يمادينه وحي ملاقاتين فردي أي دقع في الوضع جبهد كي يا الله الله كي يوانديد لكن يولين وانسي سي وانديد Djibouti markii la laabtay oo ciidan ma lahayn ciidan ma lahayn iyada afkan jibin leh markaas ay nimankii awal Ethiopia joogi jiray waxay yiraahdeen Ethiopian la hadlaynaaye waqti bay inta u direen bay la soo hadleen waxa la yiri they are welcome warna waxa qiisiyada meesha waa ka soo dagaalamay inaan ciidan wax niyeelay liyeeli ma haymadeen واتقني أنه وفتئة مركه واتي أنا واحد راعين الأورنجي أم صاحب عين كنتي هلنا عين أحمد الجير وسركيسي وكتيكم ده هذا السلام مركان تقني وهانو تقني الله يتوان كي شولاي تدوات الإسلام كل أنا لدى شيء qoladii awal naga sii horeysay baa meel naga kula dejiyay waxaan wada jabhad inaan dhisano aan weydiisanayno iyaguna nasiiyaan baysaskii iyo wixii iyo oo ciidankii Soomaaliyeed intaanu ka keensano Soomaaliya gudaheed aanu jabhad inta ka dhigno markaa ku dagaalgalno oo wax ku afrino Ethiopia mingista jooga oo isna ka aan sheeganayo waliba hanti wadaag sheeganayo حقي كلنا محمد سياد بريه وكعان كسيبا شو وحبه ميليتري من قصة نويا ووتقني وحبه منير سيدا وحرطان واو شأنه وحان ربنا بيساس إنا مجاس إسلام
xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysa oo dhinaciina ah si aanu marka hore ciidan iyo magciisi iyo waxay isu abaabulo oo isu hubayno operationska markaan bilownaad ee Soomaaliya gudaheedan ku dagaalamay mucaaradkii badnaayo anagu aan ogeynoo Soomaaliyeedna wuu naga haray reer waqooyina waa naga haray abdisalaam adiga hadir inaan inta ku sheego wax dhammaan ma arkay beelihii kale oo maaragtay koonfur joogana waa naga hareen inta iyadaanay rag isku wada beela baana laakiin siyaasiyiinta reer waliba ku jira ma garanaysaa mahama aan weli ilaawin yuu noo soo jeediyey waa mingiste ha mingistana markaa ka hor anigu maarag wuxuuna yiri anagu haddaan Itoobiyaan nahay waxaan ku maahmaanaa shabeel dabada lama qabto haddaa qabatana lama sii daayo suuqa ku cunay marka hadda anagu waxaan leenahay maahmaadaas iyo dhaqankaas ogaada buuli waa idinka aqbalay taladiini waayo haddaad siyaad marre la dagaalaysaan yani waxba kama qabo saasaanu horta ku helay Ethiopia ina saldhig ka dhigataan markaasaanu ku noqonay Nairobi markaasaanu awaabul galay markaasaanu siyaasiyiintii keenay markaasaanu dhalinyaro badan oo meel walba joogtay u yeernay oo keenay labadii urur ugu horreeyay oo aanu jabhada ka asaasnay bayska magaalada la yiraahdo waxaa la yiraahdaa erer gooto oo diridhabe 70 kilomitir ka galbeedaysa oo ciisaha ay degan yihiin halkaasna bays ka dhigan oo tababarkii horeeyo ka galay kadibna dee waatay jabhadii markii dambe waxay u xubsiibatay sida la socono ururkii ama jabhadii SSDF ilaa qaar kale noo yimid maanu markaas raacnay SSDF la noqotay markii hore Somali Salvation Front yahay markii dambe qola maaragtay bidix ahaan jiray oo cadan fadhigooda ay nagu soo biireen bayiraahdeen magaca waxa laga bedelay waayo waxaan wari maxaa yiraahdo magacu waxna yeeli maayo runtu waxay tahay waxaan aaminsan dartay markii dambe jabhada kale ayaa iyaguna soo biiray oo SNM ay kamid ahayd oo Ethiopia ku yimi adoo soo koobaya dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday sida aad la socoto mudane waxa dad fara badan ay wax ka saaraan in jabhadihii ka soo horjeeday dawladda Soomaaliya ay u suurta gali weydeen inay midoobaan adiguna dabcan waxaad muddada madax ka ahayd jabhadii SSDF maxay taas ku dhacday annagu raali waanu ku ahayn fikradaad iminka soo jeedinaysaan qabnay hadaan SSDF na madax waa bayska iyo qolo walba heedku tarkeeduna dilil dhago ah marka horta group ay yimid magciisi congress bay sameeyeen way isbedeleen markii dambe Siilaan yimid Ahmed Mohamed Mahmoud Siilaan oo iminka siyaasiya baa madax ka noqday SNM baanu fikrad u jeedin personally ana u jeedin ragga u jeedin Siilaan ku jira hadana uu joogaa waxaan ku niri waa dirirlabe waxaan ku niri si aynu hadiiba ugu guuleysano waqtiga u soo gaabino halganka riitaanka dawladda la diraysana aan soo dedejino aan isku daro jabhadaha wixii kale mucaarad oo yimaadana hayla la midoobeen ilaa markaa wixii waa ka baxayaan qabyaalad iyo gobol iyo magaciisa waa ka baxayaan oo xoogaabaya dagaalkii oo shacabkiina uu sii ayday ninka hadalka yiri aniga way laakiin waxaan ku soo tashanay waxaanu ahayn laba group oo leadershipkii labada jabhadood oo miis wareegsan isoo fadhiya Siilaan ii jawaabay wuxuu ugu yiri ama ugu yiri adeer arrin 60kii khaldantay ilaa aan mustaxano
إذا لم يدومين وافهم أنا أقول وجهه وايو كوبي اللي حدن كي انغلاب حسن كيد سراكيشي كونفوريات كايدو شوكتي وقوي بمجري قوس الشراس حسن كيد سياسيين بكدم بيسي سياسيين تو وحرين مركي أي إنمضوا قبصدان قولده وقويك انت دورك يغنين هي كونفوريات كا نغبطان قوس الشيء كله واقع به إني تيون دوس حدان وانقرتانا لكن هي waxay tilmaamaan sida la socoto in farq idin dhaxeeyay way tilmaamaan laakiin waxay tilmaamaan oo kale in goosashadu ay ahayd mid ka dhalatay arrintii burco iyo markii cali mahdi la caleema saaray iyo wallahi ana waxba ka jirin min gistiba kula heshiiyeen intaan siiraay madax noqon oo min gisto markii daba waxa ku diray doonay ka mid tahay ila Soomaali meel wada joogto oo iska qayilayso markay waxa kala qarsoon goordamba markay noqoto kii wax lagu leeshiyo uu sheegay personal ana ogaa leadership iyo dhanba ogaa anaga qaar reer waqooyi leadership ku jira magaranaysa goosashada bilowgii bay wateen oo min kisti ku leeshiyo hadday ku carabiyayaan wax kala ku sheegaan wax jira ma absal ilaahu bayn markaa ka yaabay weydiideen macnuhu wuxuu ahaa goosashadii koob iyo 60kii inqalaabkii la isku dayay ee fashalay in inta guul gaaro la meel maray haatan yaa ku khasbay waa goosanay markii rejiimkii Maxamed Siyaad Barre dhacay soo intay congress isugu yimaadeen oo shireen may caddeeyo ku dhawaaqeen gobolada waqooyiga waa goosanay la tilmaantay waxyaabaha hogaamiyihii waagaas Ethiopia mingista xayla maryaa iska hortimaadeen ayay kamid ahayd arrintan aad sheegtay inuu dhiiri gelinayay ee goosashada waqooyiga maxaa isku qabatay kala mingista waxaan isku qabanay 5 iyo 4 iyo 8 annagu 5 sano 6 sano dagaalamay warta SNM waxay timi 4 sano oo dagaal ku jiray Soomaad garan أول كريان واحد مركي يمادينا والله هذا الله والله هذا الله والله هذا الله واسول قالوا ويدي إلى المدونة مركي لقاري أفري سجيتنكي وسير كي هراء وأرمها دبده وإثيوبيا ومركز شوي قوش ولد بالورنجي بعد عضو ولا كهذا wuxuu si open u yiri baan balle iyo galdogo anagu aan joogno qabsanay oo ciidamada Soomaaliya qabsanay oo gobolada dhaxa wuxuu yiri baan balle iyo galdogo waa part and parcel of Somalia waa qayb aan ka go'i karin dalweynaha Itoobiya waa sabab wada hadli karaan lahaanshahooda hadii حدودي العلامة أنت اللي هو شيء العلامة يروح لمري مركا إلي قرقر سنتهي أدبو ودي شيء أولنا وحن كعيل قبني كالقوينت لكن أنا أبنه مو أبني وحن شريه مركا إسدمتي في كوميتي وروكيان وحن وهم كوبي يتوانين ورقة ماشي ورنكي وحاسو كوهالي إنه مرتقلي إنه يهو إنه مخائمين بينو أهين دالكو خائن كواه مثل ريشين بلا دقالين مثل ريشين بلا دقالين أيوه نقودانين بانا دي سالسة اللي يري محاينو حالي يلا محاينو يلا وحالي يري يغرطوا إنه هضلينا نكري إذا حدي بيتشوي قوري إذا حدي مركا نقد حيثي أنا يو بسنة وحالي دحقية كهالينا إذا هدينا سيان القرد أيضا كهالينا رجي ورنو البوكي فورين كنو
قابل سنة كي ورفافين تنو قابل سنة دهول وادي كاونتر بارتي كاغو أهانك هذا حتى هذا بلام بليه يقول لك سومالي بقول يلا إن كان عليه هذا نجا شوقنا لقوا نقول قرتين كانوا نقول بقري مرة هو ذا بقرين ما هو هنكويري هذا وحلوة بهاي أما إن أمد الصومالية هرتي هذا خائمين إنه نقول إنه إيش كان يوكو تلاقى أم بكرة مسكرة أرنتي إذن كأيري إذا قدر أي نصيحة كهذا أنا ولي لقات هذا دين إذن كنا هذا شان أنا خليا وهنقول يا بلام بلي يا جلدوب ودموي كم من الصومالي صومالي كتير سنة إم كتير سنة ولقوا أحمد دورك صومالي ملا كتير سنة هذا أنا نشوفنا لقوا من أقول قرتني كرو مارك الله marka waan ka hadlaa qoosashay waxaan Ethiopia oo u dagaalamaysa midnimada Ethiopia oo Eritrea inay go'da diidaysa Soomaaliya in la kala jaro kala aqbal karo attack bay u arkeenyo laakiin waa mabda ومبدئ اللي قربي إنه ودني إنه يرهده. وقت مركي وركا إذا عدى أتكشف. كاس يجوا غبا. بدحري شباب اللي دحري وحكك على رق مرتين. إسكت عليه وأنا ما راح نقضى عنه ترتيب. أرنتي ودين برب لهم بيشجعين بينه ومارتين الرومانستي. لكن وح قنت تهاي ولا لا يوحري. وهو يبلن بلي يقل. هل كانت كحر لك يقص شر. waxaan ku xirnaa xabsi ciidamada militarigu leeyihiin aeroboortka magaalada dhexdeeda ku yaal ma taqaan waxa la yiraahdaa all airport kan international ka ah hadda meel kale laga dhisay ma kaas boole airport baa la yiraahdaa warka halkaas afkeeda soo magaalada xiga xabsi ku yaal baa ku jira muddo intee lag baad ku jirtaa kaligeena ma ahayn nin baa la igu daray oo ila xidhnaa laakiin xabsiga lagu dilay ayaan dar نصف سياسية أو متعلمة أو وزير أهان شري أو غرفة فين تهين شري أو عبد الله الأورنج شري فاش من خاطر تربى اللي قدري حبسي كان اللي قدري لكن أنا وننا الله هذينا وقول كي كان يسكت شويه لحسن الله قولنا الله واطي سو دين تادي دمبه waxay ku soo beegantay burburkii dawladda Soomaaliya iyo dhicitaankii dawladda Mengistu isku waqti ahaa xukuumaddan cusub ee markaa la wareegtay talada Ethiopia ku soo deysay Soomaaliya iga soo deyn laakiin ma bay ogeyn beenan meesha ku xirnahay baan malaynay markii magaaladii habeennimadii ay ciidan badan soo galiyeen aroortii strategic maartay positionistii magaalada warfaafintii iyo magaciisii agaasi bay qabsadeen wadooyinkii oo dhan bay kala jarjareen dagaal baa ciidamadii wixii joogay isku dayeen inay shabayaan bay garteen ciidankii xabsiga hayay oo military police ah markuu arkay meesha in lagu kala yaacayo bay iska yaaceen marka gruubkii u dambeeyay baxsanayay baa aniga galabtii hore dadkii kale oo dhan la sii daayay aniga habeenkii xabsiga ku jiro habeenkaas oo mortar baa lagu garaacay laakiin dadam taadi gal dhiman weysay oo inta iska labistay iska fadhiya subaxdii baa ku ugu dambeeyay cararayay baa albaabkii soo furay handaraab baa ku jiray albaabka koobe kulmis nooweega markulmis baa tahay kulmis yani idaacada magaceedii weeye ma garanaysaa ha awanay waxay igu yiraahdeen alaabtaadii intaa suran kaliya oo maalintaan soo galay watay baan haystaa baan ku iyo intaan gashana waa qaateen sheebka waxay ka heleen konton bir oo nin jalan ahaayo galabtii hore la sii daayay oo daaqada si qarsoodi iiga dhiibay oo war haddii lagu soo daayo taasi ku soo raac waxaan ila qaato inta aan qabo inta ii daysaan
aan iska bixin daaya waa arkaan inay meesha ka cararayaan haddii haddana la igu xiro oo dowladdii dambe igu soo gaadho meesha qabsatay dabcan way sii dayn lahayeen dabcan soo daynta laga soo daayay xabsiga ku yaala magaalada Addis Ababa kadib markii ay dhacday dowladdii hore ee Ethiopia ee hogaamiye uu ka ahaa Mengistu Haile Mariam waxa ay ku soo beegantay burburkii iyo dhicitaankii dowladdii hore ee Soomaaliya ee hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre wararka ku saabsan wixii intaasi ka dambeeyayna waxaan u malaynayaa dadku waa ka wada dhageysan yahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed adaa mudan mahadsan